isku soo noqod wanaagsan daawadayaal warkiyo fidsan wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxay u ambabaxeen magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya. ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen magaalada Addis Ababa waxaana la filayaa inay ka qayb galaan shirka urur goboleedka IGAD ee kaas oo ka dhacaya magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya. wafdigu uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka qayb galaya shirka magaalada Addis Ababa ay ku yeelanayaan wadamada ku jira urur goboleedka IGAD waxaana shirkaasi looga hadlayaa xaaladaha ammaanka ee qaar ka mid ah wadamada Afrika. warar hordhac oo ka soo baxaya shirka magaalada Addis Ababa ayaa waxay sheegayaan in si weyn looga hadli doono colaadda ka taagan dalka Suudaan. madaxda ka qayb galaysa shirkan ayaa jeedin doona khudbado kala duwan oo ku saabsan wadamada ay colaadaha ka jiraan inkasta oo ajaduhu uu yahay in laga hadlo colaadda ka taagan dalka Suudaan ayaa haddana wararka ka soo baxaya shirka waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo khudbadiisa uu kaga hadli doono xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya iyo waliba wixii uu qabsoomay xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre.